Qaar ka mid ah aqoon-yahanada dadka naafada Soomaaliyeed ayaa kulan ku qabtay magaalada Muqdisho. Kulankani ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay ka hadleen tacliinta xirfadaha iyo shaqaaleynta dadka naafada aqoonta leh ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Kulankani ayaa waxa uu ku soo aaday 15 Juulaay 2019 oo ah maalinta xirfadaha adduunka oo ah maalintii dunida u aqoonsatay 2014. Kulankani waxa soo qaban qaabiyay ururka SASDI oo ah Somali Association Scholars with Disability, ururka aqoon-yahanada dadka naafada Soomaaliyeed. Mana rajeynayo maanta ka hor dhalinyaradii disability-ga ahaa ee wax soo bartay ama waxbarashada ku jira meel gooni ah oo ay ayahooda ugu wada hadlayaan oo aan madashan ahayn inay hor u dhacdo ma rajeynayo. Waan uga mahadcelinayaa shakhsi kasta oo fududeeyay isku imaatinkeena quruxda badan. Kulley boonti kasta oo ii muuqday oo aan ka hadli lahaa walaalihii hore la tagay uunsan u hortagi karin goobihii shaqada laga heli jiray siyaabo badan awgood bulshadan ku baraarugsaneen iyo ummadii oo iska noqotay hadeeto nin garasho ama qofkii dhahayo ma adiga haddaan shaqada ku dhiibto ma adigaan qof ku yaana kugu daraya oo ku caawinaya mise maxaa la yiraahdaa qof shaqayaan meesha Kenya horta fikradaas inaan maxaa la yiraahdaa horta xoog la saaro aad baan u soo dhaweynayaa. Qodobka kale wuxuu yahay dawlad baa hadda jirta haba yaraato in la helo percentage dadka naafada ay leeyihiin. waxaan talo aan soo gudbi rabaa in dadka naafada u sheegi rabaa waxaa jiro 3 qodob oo qofka naafada u daran qofka lugaha qaban u roon. qofka naafada haduusan wax baran mar walbaba waxa ku jirto qaabka u gaari lahay qofka cagaha qabo mana gaari karo qofka cagaha qabo soo wax baran. qofka cagaha qabo uu ka maarma waxbarashada si loo fiiriyo because wuxuu haystaa xoog oo hadduu soo wax baran ku xamaalan karo. anaga ma nihin dad xoog leh waxaan u sheegaynaa dadka awoodda u leh aqoonta maanta Muqdisho hayo iyo dawladda iyo hay'adaha dhan aan rabnaa in ay sameeyaan awaris dadka naafada ah lagu ogolaan karo qaabka wax ku baran lahaayeen. waxa loo sameyn karaa aaminsanahay guriga in la soo bilaabo qofka naafiga marka oo la arkay qofkaas meesha ku nool yahay guriga la tagay qoyska laga dhaadhicay in qofka wax qabsan kara oo baran kara. waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dad aniga camalaan inaan barnaamijka la qayb qaato. SASDI waxaan u aasaasnay dhalinyarta disabled people-ka ah ee aqoon-yahanka si yacni ay bulshada ula jaan qaadaan oo yacni ay bulshada ula loolantamaan. bulshada waxaynu kula tartami karnaa muhiimadeedu waa 2 qodob oo aynu bulshada ku dhex geli karnaa. kow horta inaan wax barano oo aynu waxbarashada inagu aynu isku dhiirigelino inteena kale aan waxbarashada fursad u haysana aynu ugu raadin lahayn si waxbarashada ay fursad ugu heli lahaayeen. marka hore 2 jab waay marka haduu wax qabsan karin oo marka hore asoo xoog lahay haduu sheeg xagga aqoontina ka dhinto waa dhibaato. maanta ay taariikhdu tahay 15 bisha 7 2019 waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka qayb qaato kulan oo ay qabanayeen Somali Association Scholars with Disability kaasoo looga hadlayay tayeynta aqoonta dadka naafada, shaqo abuurka dadka naafada iyo cilmi baaris ku saabsan arrimaha naafada. runtii SASDI waxay ka shaqeyn doontaa in dadka naafada noocyada kala duwan hadba inta iskugu jiraan badii kuwa aragala hadii kuwa dhagool hadii ay yihiin kuwa xagga oo physicalka ah dhammaantood inay wax wada bartaan ay ka shaqeyn doontaa. runtii maanta waxaan iskugu imaanay inaan baldejiisano ajandihii iyo plaankii association-kan loo sameeyay. runtii association-kan wuxuu xooga saari doonaa ama uu ka hadli doonaa 3 qodob oo ah in dadka naafada lagu wacyigeliyo waxbarashada in kuwa wax bartay jecel inay wax bartaan horena u sii horumariyaan waxbarashada laga caawiyo inay helaan scholarships ayadoo la aadayo goobaha sourciga ah bixinta scholarshipska iyo kuwa jaamacadaha dhameeyay qalin jabiye ee runtii dadaalka iyo kartida dheeraadka ah muujiyo runtii dadaalkii environmentkii barrierskii wax ku soo barteen runtii mirahooda inay maanta helaan oo ay employment la raadiyo oo shaqaaleysiin
hay-adaha ayagana sourciga haddii ahaan lahayn public sectorka ama private sectorka. Cabdicasiis Guure Axmed, Somali Online Media, Muqdisho.